waxa uu ka bilaabay ganacsiga meel aad u hooseysa isagoo daahaan aad u yar waxaana sanado badan oo dadaal dheer ah kadib uu noqday mulkiilaha shirkado ganacsi oo dhowr ah iyo hoteelo lagu dhisay malaayiin dollar oo casri ah. sababta guusha ganacsadahan da'da yar ee Bashaar u saamaxday inuu sameeyo muddo kooban shirkado iyo hoteelo malaayiin dollar ah ayaa ku tilmaamay sidan: businesska ha u gelin inaad ka bariisiiso kaliya isku day inaad meel la taaban kara gaarto. Soomaalida waxa lagu yaqaan garab kororteen aan ku dhufo ka dhaqo waxayna isku day inaad ka dhex muuqato bulshada businessyada corporate ka samaysan noqoto oo u gasho businesska beyond business beyond money waxaanay noqotay tangible noqdaan oo dadka impact noloshooda ku yeeshaan. Marka do it for the excellence. adduunku wuxuu reward gareeyay excellence. Waxaad u jeedaa waa wadino wax cut corners maana sameyn shortcut maana sameyn excellence job aan sameynay aan alxamdulillah waxaan wanaaga maanta la soo galayna ayada. hoteeladan uu leeyahay ganacsadahan da'da yar ee Bashaar ayaa ah kuwo si qurux badan loo qaabiyey kuna yaala goobaha ugu qaalisan ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, kuwaasoo lagu magacaabo Gigiri Lions Villa 1 iyo 2 isla markaasina kuwa 5 star ah. كنا نروح وكمدي قرارك وقع لسان هوتيلها تيمك هوتيلك waxay sheegeen in habeenkii lagu seexdo $200 wax ka badan waa lacag aad u qaali ah laakiin muhiimadda ayaa waxay tusaysaa sidoo kale qalabka meesha la geliyay iyo quruxda meesha la geliyay inay sidoo kale u dhiganto qiimaha habeenkii lagu seexanayo. Bashaar ayaana aaminsaneyn in muddo aad u kooban ganacsi guul lagaga samayn karo sababtuna waa tan Soomaalida kuma ma geedka orod balagu soo dhigaa marka qof walba successful 10 years 5 years minimum kuma qaadanaysa inuu noqdo tangible inuu gaaro tangible result ama success marka scale hadii aad degdeg ku samayso degdeg wixii orod ku soo galo orod bay ka baxayaan marka waqti gali energy gali u sabir then multitasking ka farad baan iska laa all over the place qofka ka samaad soo business kan jiro isku day hal wax inaad waqti iyo energy iyo xooggaada xaniyada soo geyso marka waqti galiya sabir ilaahay tala saaro خلاص. asxaabta waxyaabaha kale ee ku arkayso hoteelkan Gigiri Lions Villa 2 ayaa waxa kamid ah in baabuurta lagu qaado dadka halkan degan ay yihiin kuwa ugu qaalisan dunida sida gaariga haatan ku jiro waa Mercedes Benz waliba waa mid kamid ah noocyada ugu qaalisan Mercedeska oo Maybach loo yaqaan. tani waxay ku tusaysaa in Soomaalidu ay ganacsiga ka gaadhay dalka Kenya marka la eego meel aad u waaweyn sida Bashaar dheer oo kale. dadaalada iyo ganacsiyada badan ee wada ganacsadahan da'da yar ee Bashaar ayaa ah kuwa uu kala kulmo falcelinno kala duwan oo dhanka bulshada ah balse Bashaar ayaa sidan aaminsan isagu. wallahi qaar some of them xusmeenay oo motivate garanay kuwa kale waxay ku leeyihiin of course qof walba approval ka meelis kuwa kalena kuna ku support garanay kuna kuma support garanay marka you don't stop for anybody. adaa rabaa inaad ogaato xarabta you have to know what you want end of the day and you have to do whatever it takes to achieve what you want. marka alhamdulillah adiga two things about the badan ka qaldan they don't majority of people I'm not only saying that kind of clear waxa ka qaldan they don't know what they want and they don't know what they're doing. aniga alhamdulillah two things caawisay waxa way I already figured out what I want and I know what I'm doing. laba sadad fahanto waxa aad rabto iyo waxa aad samaynayso dad fahanto nolosha wax kala iska fuudaanay. waxaanu haatan gaadhnay hoteelkii koobaad ee uu hirgeliyay Bashaar kaasoo lagu magacaabo Gigiri Lions Villa 1 oo leh dhammaan adeegyada uu yeelan karo hoteelada 5 star ka ah ee dunida sida qolalka hurdada oo ah kuwa si heer sare loo qaabeeyay iyo qaybaha kala duwan ee dhammaan dhismaha hoteelka. Bashaar dheere ayaa hore waxa uga mid ahaa dhalinyarada sida weyn ugu dhiirigeliyay dhalinyarada kale arrimaha ganacsiga iyo sida ay nolosha guul uga sameyn lahaayeen balse arrintaasi waxa uu joojiyay 6 bilood oo u dambeysay waxaana uu sababta ku sheegay sidani: bahasha xilliga freega ahayd way dhaaftay anigu audio box courseska aan wax ka bartay nolosheeda personal development ka sameeyay waa iibsadaa xilliga bahasha bilaash ku dhamaatay hadda content cusub oo money you have to pay for it fasawna insha Allah book bank shaqaynayna waxaan ka shaqaynaa course fiican oo more detail how to become successful insha Allah taala marka diyaar noqdaan wala soo daayna ninkii weydiiyay mar rawiyo waxa qad ka dhacay wax ku ridaada password kan ilooday but technically ay waxaan rabaa inaan u noolaado somehow people before internet tisciinaadka dadka online internet laadka kaayno aniga dab si aan qabsado waqti ugu helo nolosheeda personal development waxaan aaminsanahay inaan wali potential-kayga iyo fursadaha haysta inaan wali aan utilize garan waliba ka isticmaal hataa waa qaybta ka dhacaan shirarka hoteelka Gigiri Lions Villa oo ah mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada Nairobi. waxa aad isoo jirta waxa ka mid ah colorka iyo sida loo design gareeyay iyo waxaan aad u jecelahay colorka grey-ga loo yaqaan. dhalinyarada jecel ganacsiga hal abuurka ayaa uu Bashaar la wadaagay fariintan.
waxaan rajaynayaa bulshadana inay saan iska bedesho oo mustaqbal fiican ay helato oo dhalinyaro badan oo adduunka fooska lagu dhisi lagu waa dhalinyarada inay fooska dhalinyarada inay noqdaan kuwa wax dhiso oo wax dumiye aysan noqon insha Allah. Bashaar ayaa ah ganacsade daayar kaasi oo ku leh ganacsiyo kala duwan dalalka Kenya iyo Koonfurta Suudaan kuwaasoo isugu jira hoteelo 5 star ah iyo shirkado ganacsiyo ka shaqeeya arrimaha logistikada ee dalka Koonfurta Suudaan. waxaana uu mustaqbalka dhow rajaynayaa in ganacsigiisu uu gaaro guud ahaan bariga Afrika. sheekada Bashaar ayaa waxaanu ka baran karnaa daawade inay muhiim tahay isla markaasina aad ka faa'iidaysato fursad kasta marka ay timaado. ku xidhnow Ayub Show lana soco muuqaal cusub.